السلام عليكم وفاريبلسكي ويان فاريبلسكو maxay yihiin fariiblisku waa container aynu data ku dhex store garaynayno datada aynu ku dhex store garaynayno waxay noqon kartaa data integer ah oo numbers ah data doubles ah oo iyo number points la ah booleans ayay noqon kartaa datadaasi waxay noqon kartaa string arrays ayay noqon kartaa objects ayay noqon kartaa arrayska iyo objectyadaasi waxay yihiin xagga dambe ayaynu ugu tegi doonaa laakiin markaad variable aad rabto inaad dataad ku dhex store garayso dhammaan qaybaha kala duwan ee datadaba waa lagu dhex store garan karaa ugu horreyn variableka marka aad samaynayso waxa khasab ah inaad ka bilowdo $sign waxaad raacini variablekaasi magaciisa iyo valuega uu variablekaasi leeyahay ama datada aynu variablekaasi ku dhex store garaynayno mar kasta oo variablekaasi uu yeedhno oo koodhkeena meel kastoo ka mid aynu ku dhex isticmaalno waxaynu helaynaa datadii aynu variablekaasi aynu dhex dhiganay tusaale ahaan sida halkan ku xusan waxaan sameeyey variable datada aan dhex dhiganayana ama aan ku store garaynayana waxaan ka dhigay abject group waxaan idhi echo isoo daabac variablekaasi variable 1 loo yaqaano datada ku dhex jirta sidaa halkan ka arkaysa browserkeena waxaa inoo soo baxday abject group oo ah variablekan aynu soo printer garaynay valuegiisa haddaba variableka markaad samaynayso waxaad ku bilaabi $sign sidoo kale marka aad u wacaysana waxaad ka horreysiin variableka magaciisa wax loo yaqaano $sign waayahay haddaba variableka marka aynu magaca u samaynayno waxaa jira rules la raaco ruleskaasi waxaa ka mid ah qodobka koowaad saynu sheegnay waa inaad ku bilowdo $sign mar labaadka waa inaad ka bilowdo ama aad tidhaahdo magaca markaad u bixinayso waa inaad magacaasi u noqdo magac letter ah ama magac underscore waa inuu noqdaa variableka waxaa mamnuuc ka ah in laga bilaabo ama magaca ama letterka ugu horeeya uu noqdo number kama dhigayno laakiin variableka waxaynu ka dhigaynaa letters ayaynu ka dhigaynaa ama underscore waayahay variableka magaciisu waxa uu noqon karaa alphanumeric characters waxa uu noqon karaa xarfaha sida a ilaa z wixii u dhexeeya ayaynu ka dhigi karnaa sidoo kale waxaynu ku dhex isticmaali karnaa iyadoo oon ka ugu horeeya aan laga dhigin numberskana waynu ku dhex isticmaali karnaa iyo weliba underscore xasuusnow variableka saynu hore u sheegnay waxa weeyaan case sensitive oo micnaheedu waxa weeyaan halkan var 1 ayaan idhi haddii aan idhaahdo halkaasi var ay fiida ugu horeysa ay tahay capital lama aqoonsanayo oo browserkaygu ama serverkaygu ma aqoonsanayo variableka fiida ugu horeysa ay capital tahay haddaan refresh gareeyo undefined variable ayuu soo saaraya micnaheeduna waxa weeyaan ruleska koowaad ama ruleka ugu dambeeyey variableka magaciisu waxa weeyaan case sensitive weeyaan php-ga marka la joogo waay fiidiisii caadiga ayaan ka dhigayaa waan safe garaynayaa waxaan leeyahay refresh waxaan filayaa variablekaasi inuu serverkaygu aqoonsado waay sidoo kale waxaynu soo daabici karnaa saad halkan ku arkayso variablekan waxaan idhi variablekaasi aan sameeyey variableka sidoo kale magaciisa waxaad ka dhigi kartaa hal letter sida halkaad ku arkayso x equal 15 halkan hoose waxaad ku arkaysaa x equal 20.5 variableka hooseynu hore u sheegnay datada aynu ku dhex store garaynayno integerna waa noqon kartaan doublesna waa noqon kartaa okay markaaynu soo daabacayno aynu ku soo daabacayno browserkeena dhinaca clientka ama browserka markaynu ku soo daabacayno waxaynu ugu wacaynaa ama aynu ugu yeedhaynaa ama aynu ku soo display garaynaynaa valuega variablekaasi echo oo la raaciyey $sign iyo weliba variable nameka saad halkaa ku arkayso echo line 17 ama 17 waxaad arkaysaa echo iyo waxaan idhi $sign iyo egs halkan waxaad ku arkaysaa egs valuegeedu waxa weeyaan 15 browserkeenana waxaynu ku aragnay inay tahay 15 waxaan raaciyey br ama line break ama new line waxaad ku arkaysaa b lineka hoostiisa waxaan raaciyey echo $sign iyo y waxaad ii soo daabacdaa baan ku uri y valuegeedu waxa weeyaan 20.5 halkaa waxaad ku arkaysaa 20.5 sidoo kale variable kale ayaynu sameynay magaciisa waxaan noo bixinay store valuegiisana waxaynu ka dhignay football halkan waxaad ku arkaysaa echo combination ama isku darka string iyo variable waxaynu isku darnay string iyo variable ayaynu isku darnay waxaan idhi variablekan magaciisa waxaan ka dhigay sports valuegiisana waxaan ka dhigay football waxaad ii soo daabacdaa baan ku idhi I like waxaad ii raacisaa baan ku idhi variableka loo yaqaano sport valuegiisa variableka loo yaqaano sport valuegiisa waxa weeyaan football sidoo kale waxaad browserka igu soo daabacdaa baan ku idhi I like variablekan loo yaqaano sport valuegiisa oo ah football I like football isoo daabac baan ku idhi saad browserkeena ku arkaysana waxaa inoo soo baxday
I like football ayaynu soo baxday taasi micnaheedu waxa weeyaan waxaan isku dari karnaa combination ayaynu ku samayn karnaa ama isku dar ayaynu ku samayn karnaa echo markaynu soo display garaynayno string iyo variable ayaynu isku dari karnaa dabadeed waxaan idhi haddana waxaad soo daabacdaa echo hr waxaa loo isticmaalaa horizontal line ayaa loo isticmaalaa waa html tag weeyaan way saad haddaba halkan ku arkayso mar labaad waxaan idhi echo football echo I like variablekaasi valuegiisa display waxyaabaha valuega kusoo display garaynaya browserka ugu horreyn waxaad tirahdaa I like deetana waxaan idhi dot quotation kan halkaasaan kusoo xiday markastoo string aynu soo display garaynayno ama aynu valuegeena aynu string xarfo string ah aynu ku dhex store garaynayno waxaynu isticmaalaynaa wax loo yaqaano quotation laakiin numberska ma isticmaalayno wax quotation haddaba waxaan halka aad ku arkayso markan line 24 waxaad isoo daabacdaa baan ku yidhi I like variableka sports valuegiisa oo ah sports mar labaad waxaad samaysaa baan ku yidhi I like markan waxaa ku sameeyey quotationkii waan soo xidhay laakiin dot ayaan idhi dotka waxaa loo isticmaalaa two results ama two value oo resultiyada markaad rabto laba variable resultigooda inaad isku geyso ayaa loo isticmaalaa dot oo concatenation ayaa loo yaqaanaa waxaan idhi waxaad isoo daabacdaa I like iyo sports oo ah football saad halkaa ku arkayso football ayaa lasoo daabacay waxaad sidoo kale aad sii raacisaa baan idhi calaamadda exclamation mark loo yaqaano sidoo wax kale waxaan halkaa uga jeednaa waxaan isku daba qaban karnaa ama aynu isku geyn karnaa resultiga laba value oo laba variable resultiskooga ama waxaan isku geyn karnaa resultiga data ama value ama string ama laba dayto inagoo isticmaalaynaa waxa loo yaqaano concatenationka way sidoo kale echo markaynu isticmaalayno waxaynu samayn karnaa calculation dhinaca variableska variablekan aan samaynay ee waxa loo yaqaanaa p valuegiisa waxaynu ka dhignay v variableka kalena waxaanu ka dhignay magaciisa c valuegiisana waxaynu ka dhignay 8 ayaynu ka dhignay haddaba waxaad noo soo daabacdaa baan ku yidhi variableka b oo loo geeyey variableka c saa halkaad ku arkayso resultiga inoo soo baxdayna waa 13 resultiga 13kii waxay ka soo baxaysaa 5 oo loo geeyey 8 oo ah 13 waa variableskii weeyaan concatenationka muuqaalada ku xiga ayaynu kaga hadli doonaa iyagoo faahfaahsan muuqaalkan waxaynu ka hadlnay qaabka loo sameeyo variableka waxaynu xusnay variablesku inay leeyihiin ruleska waxaa number 1 ka ahaa variableka markaad samaynayso ugu horreynba waxaa lagu bilaabaa $sign la raaciyey variable namekii variable nameka markaad samaynaysana rules la raaca ayaa jira ruleska waxaa 1 ka ah in variablekaasi uu ka bilaabmo letters aanu ka bilaabin numbers wax loo yaqaano ama numberska kama bilaabi kartid laakiin waxaad ka bilaabi kartaa letters ayaad ka bilaabi kartaa magacaagu wuxuu ka koobnaan karaa xarfaha a to z numbers iyo underscore ayuu ka koobnaan karaa magaca variableku waa key sensitive weeyaan oo haddii aad isticmaasho small letters ma isticmaali kartid capital letters sidoo kale waxaynu xusnay qaabka loogu sameeyo calculation variable ama raba result oo laba variable la isugu geeyo inagoo isticmaalaynaa echo statement ama echo function inagoo isticmaalaynaa resultiga inoo soo wada baxday waa kan abyad group resultigaasi waxaynu ka helnay variableka valuegiisa ayay ahayd waa inaga halkan kusoo daabacnay nidhi echo halkaasi waxaa ku jirta slashtaas halkii naga soo raacday okay aan ku noqono yes waa halkan weeyaan slashtaasi taagga markaan xidhay dabadiisa ayaa waxaan idhi slash ayaan idhi waa qalad weeyaan soo refresh haddaan ku idhaahdo halkaasi slashtaasi way ka baxaysaa meesha ka baxaysaa way muuqaalkana intaas ayaan kusoo koobaya mar labaad haddii aad channelka ku cusub tahay please subscribe dhe haddaad u baahan tahay muuqaalkani in wax su-aala aadna fahmin ay jirto ama aad lasii bayaamiye ay jirto dhinaca commentska igula soo wadaag lana wadaag asxaabtaada jecel inay bartaan php ga aynu ka samaynayno aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu